السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدى الصوماليات ميلا للميشا جوكتان وحان إذنكو سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت وناق جعل، انت قولها ودنك جعل، انت هرمرك ودنك جعل. وحان إذن لي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وناق جعلت dhididka iga socdo waad u jeedaan jaakad iguma barneen balse laakiin hadda kadib jaakad ayaad ugu arki doontaan insha Allah ta'ala koofiyadeedu waa taa geedaha hoostooda aan la seexanaya soo ma arkaysaan intoo hal qof ka dambeeyo cadawgan ugus ma neebsan doono insha Allah ta'ala jabka gaaray ayaan idinka waramayaa insha Allah ta'ala maamulada dhanna waxaan rajeynayaa insha Allah ta'ala in lagu wada dadaali doono horena askartu waxaan ugu balansaneen dhigi maayo tuutaha waa ka tuutiina waan sitaa u jeedaan dhigi maayo tuutaha inta uu cadawgan dalkan dhinac kaga nool yahay annagana neebsameeyna insha Allah ta'ala ilaahay idinkiis waxaan idin balan qaadaynaa ummadda Soomaaliyeed aan u shaqeyno shaqaalaha u nahay aan mar walba adeegaha u nahay inaan cali dheeraha oo maalmahan baraha bulshada qabsaday qaylidiisa inaan asoo baqtiyay idin keenno amba inaan idin keenno asoo jeebeysan inaan maxkamad idin soo taagno ayaa idin balan qaadayna insha Allah ta'ala awalan ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa awood iska leh taasoo awoodiisa oo ilaahay noogu suurtageliyay shalay in ay maanta ciidamadii Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin oo calankoodii ay kaga been sheeganayeen ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ku qoreen kalimatu tawxiid kalimatu laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ay ku been sheeganayeen balse laakiin maanta waxa dhabti la ogaaday inay yihiin zaalimiin ku qaraabto diinta marka meel allaale meeshay joogaan waan ugu tageynaa sidoo dagaalkan u bilowday waxaan u mahad celinayaa walaalaheen Hirshabeelle oo soo bilaabay dagaalka soo cilaamiyay wax walbo qof baa lagaga deysadaa inkastoo horeba dagaalka aan ku jirnay aan furunta annaga aan ka bixin oo mar walba dagaalka aan ku haynay cadawga argixisada al-shabaab aan mar walba dagaalka aan ku haynay oo mar walba aan soo taagneen oo waxba tuugma naga dhaxaynin balse Hirshabeelle waxa idin leeyahay guuli sharaf xaqiina ahaato ciidankana waxaan ku baraarujinayaa meel allaale meeshay joogaan hoosha aan hayno waa hool aan janno ku tageeno waa hool aan ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaanayno waayo adduunka ilaahay baana keenay hal qof oo shakhsi al-shabaab argagixisada ugus intoo wadankaas ku dambeeyo annaga inaan neefsano amba aan seexano waajib nagu ma ahan waayo waxa seexdo nacaska aan waxba kala ogeyn nin rag damiir leh oo arkaayo dalkiisa in la dulminayo oo arkaayo cadawga dalkiisa ku sugan oo arkaayo cadawga argagixisada nabadiidka al-shabaab inay hurdadiisa israacdo wax dhici kara ma aha jaakadaas wax kale uma aan soo iibsan geed walba ay galaan inaan la seexdo aan kala soo baxo ayaan ugu soo labistay aan u soo iibsaday insha Allah ta'ala marka waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed ilaahay dirta ayaa idin jeclahay marka la shaqeeyo ciidanka ka shaqeeyo wanaaga mar walba waxaan idin ka codsanayaa inta ciidanka la shaqeynayso dagaalka kula jirto inta ka soo harta guryaha fadhiso oo awood u yeelan weysay inay dagaalka ka qayb gasho waxaan ka codsanayaa inay ciidankooda u duceeyaan waayo ciidanka waa ciidankiini waa ciidankii Soomaaliyeed ma ahan ciidan qabiil ma ahan ciidan beel ma ahan dhididkaas iga muuqda aad u jeedaan xilligan hadda ah ayaan ka imaaday mar walbana waxaan leeyahay insha Allah ta'ala nabadiidka meel allaale meeshay ku sugan yihiin meesha aan ka qabsanan horaan u sii qaban doonaa waa la degi doonaa lagama soo tagaayo
meel walba nabadiidka laga qabto lagala wareego ciidan dego ayaa diyaar u ah insha Allah taala wax walba dhibaato oo shacabka uu ku haan jiray waa laga dulqaadi doonaa mar walba waxaan diyaar u nahay inaan wanaagiina aan ka shaqeyno horumarkiina aan ka shaqeyno idinkana ilaahay dartiis noola shaqeeya horumarka wadanka ka shaqeeya guulaha wadanka ka shaqeeya dawladnimada ka shaqeeya ma neebsan kari anoona neebsan oo dhididkeyga socdo ayaa idin la hadlaya hadda meel halkaas ay xabado ka soo rideen markaan dabagalnayna way carreen wax tabartoodiba daciif ah oo sidii tuugnimadii adduunka ku joogo way annaga laakiin kaas waxaan u qaadanay inaan nafteena u waayno wadankaas aan cidna aan barinin cali dheero oo shaydaan ah fircoon ah asiga iyo awowgiis iyo yahuudkii oo diinta yahuudda ugu soo sheekeeyay inuu janno ku tago ummad Soomaaliyeed inuu dhameeyo ummad Soomaaliyeed ma dhamaanayso jannada laguma tagaayo laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ninkoo ugu talagalay ee jannada tago waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed meel allaale meeshay joogaan inta al-shabaabka jecel iyaguma jiraan tirada dagaal baa naga dhaxeeyo inta shabaabka nacab waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo ciidanka la shaqeeyo ha loo duceeyo waxaan naga go'on inaan wadankaas cadowga nabadiidka inaan ka xoreyno meel allaale meeshay ku sugan yihiin inaan ugu tagno aanan ka cabsanin waxba ma ahan waa tuugo waa burcad waa yahuud ciddii niyadda ka jeclaan lahayd ha ogaato yahuuddii way baabacday farxad ayaa hadda meel allaale ku sii carraayo hadda koonfur galbeed maasha Allah tuuladii ugu qaalisaneed ee ayaga haasteen waa laga qabtay tii kalena bari ayaan ka qaban doonaa insha Allah taala inta kalena waa ku sii socon doonaa laga ma harsanaayo hal qof oo nabadiidka ah inta wadankaas ku sugan yahay inaan harsano amba aan hurudno amba aan geed hoostiisa fadhiisano amba aan sheeka maala yacni aan ka sheekeyno nagama suurto gasho walaalayaal uma dulqaadan karno in walaalaheen la dhibaateeyo guryahooda la dudumiyo naftooda bilaa macno loo gooyo annagana dareeska aan wadano waxaan u dulqaadan karnaa ma aha marka insha Allah taala ducadiina waxbay noo tartaa ididkaas iga socdo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa iga keenay balse shaqo qaran aan u hayay ayaan ku dhididay marka insha Allah taala waxa loo baahan yahay qofka wadaniga ah inay dadka la shaqeeyaan ee guulaha wadanka ay ka wada shaqeeyaan ee horumarka wadanka ay ka wada shaqeeyaan maanta ilaahay wadankaas ayuu na siiyay waxaan diyaar u nahay inaan cadowga argagixisada ugus inaan ka sifeeyno wadanka meel allaale meeshay ku sugan yihiin aan uga daba tagno oo aan meelna looga gabanin gurigay galaan waan ka daba galaynaa geedkay ku gabadaan waan ka soo saaraynaa geedka ayaan la jaraynaa insha Allah taala geedkaas qorigaas aad u jeediin looma qaadan in shacabka lagu dhibaateeyo waxa loo qaatay nabadiidka qolada ugus la yiraahdo arxalaawayaasha ah in lagu ciribtiro insha Allah taala ayaga way og yihiin meel aan soo galnay ma taagnaanayaan waayo waxay u hanjabi karaan gabdhaha masaakiinta ah oo TikTok ka hadlo aniga hadda halkan ka hadlayo waxaan cadeynayaa cali dheere inuu fircoon yahay cali dheere inuu yahuudi yahay waa nin islaam masaajid ku jiro shariicadu u banaysay ma sheegi kari inuu dilo waayo yahuudda ayaa waxa lagu yaqaanaa baytul qudus inay ku duulaan nin masaajid ku jira nin dilani waa yahuudi kale aniga ima soo hanjabi kara cali dheere iyo wicil asiga la socdo marka gabdhaha masaakiinta u hanjab balse laakiin dagaal un baa naga dhaxeeya cali dheero iyo midka kula jiro iyo inta adiga kula shaqeyso iyo inta daalimiinta ah ummadda Soomaaliyeed dhibaatayso dagaal un baa naga dhaxeeyo qorigaas ayaana dhaxyaale mooyaane baryana ma dhaxtaalo fursad allaala aad igu heshid ha igu badbaadini balse waxaad ogaataa geerida ilaahay subxaanahu wa ta'aala gacantiisa inay ku jirto xabadda wax ma sho ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa wax dila balse laakiin anaga shaydaanka ummadda dhibaateeyo inaan soo qabanno waan u dhaaranay insha Allah ta'aala waana keeni doonaa guushana waxa iska leh mar walbo ninka wadankiisa u dhaartay inuu runta ka sheego inuu ummadiisa badbaadiyo inuu ummadiisa daarahooda badbaadiyo
inuu xayawaanaadkii ceelasha laga duugayay aan ka duulno aan ka badbaadino ragga ceelasha duugayo waayo waxaan ognahay maanta cadowga nabadiidka ugus inay maanta xoolaha ay cadow ku yihiin inay bini aadinka ay cadow ku yihiin inay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay cadow ku yihiin hooyadii ayaga dhashay way khasaartay waayo waxa khasaaro ugu filan wiilkeeda oo ajar aan u soo raadinaynin wax ajar aan u keenaynin oo dhibaato kaliya u soo hooyinayo ummadda Soomaaliyeed oo mar walba raadiyo inuu dalkiisa dhibaateeyo oo ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyo waxaan dhihi lahaa hooyo macaan wiilkii kaaga jiro meeshaas la hadal kala soo bax ciidankaas ku dhiibo markaas badbaado ayuu helayaa laakiin waxaan kuu sheegayaa shalay haddii nabadiidka hanjabaadooda ay wax weyn dad la ahayd maanta annaga u hanjabayno god allaala godkay ku jiraan waa u galaynaa fariinteedana ha la gaarsiiyo fircoonka cali dheere ah oo yahuudiga ah ha la gaarsiiyo ani cali dheere iyo xulufadiisa waxa naga dhaxeeya geedkaas soo ma aragtaan baryo miyaan dhex taallo yaa soo ma jeedaan إن شاء الله تعالى صومالية والسلام يا واندالنا هاي حتى شقك إمادي حتى قولقلك إمادي قلي هوش وان جعلها هاي واي ودن كي يان جعلها هاي إذن كانوا وايدن جعلها إلهي درسي هذه جعلها وايدن كمهر بواي وايدن سور هذه مرك إن شاء الله تعالى ودن كالو دعيو صومال لماذا هو مهم ودن يد هو مهم هرمرك ودن كإلا غشقين هو مهم صوماليا هنولاتو عيدا كانوا حالي ميل الله لميشي جوغان nabadiidka meel allaala meeshuu ku sugan yahay aan ogaado waa inaan ka raadinaa waa inaan kala soo baxnaa god allaala godkuu galo looma joojinaayo maanta ciidankii nabadiidkan afjari lahaa waa diyaarsan yahay waa ciidan diyaarsan la diyaariyey la tayeeyey oo maanta howlgal diyaar u ah oo nabadiidkan cali dheere fircoonka u weyn yahay inaan soo qaban doono insha Allah ta'ala biidhnillah kariim marka ummadda Soomaaliyeed waxa idin leeyahay waxa ii imaaday walaalkay wadani ah Xasan Roobo Isaaq waa kana asigana waa idin salaamaya asna salaanta ku soo dara insha Allah ta'ala waa ciidanka wadaniyiinta ah oo howlgalka hadda ka imaadeen asigana oo aan nabadiidka aan u joojinin oo mar walba waxaan diyaar u nahay nafteena inaan idin hurno dhiigeena inaan bixino ayaan diyaar u nahay badbaadinta ummadda Soomaaliyeed daraadeeda balse laakiin ummaddu qaadanayno intaan ka badan inay nabadiidka ay ummadda dhibaateeyaan ma sha Allah dhididkaas iga baxaayo waa wadani dhididkiisa nin shaqeeyo ayaa dhidida marka insha Allah ta'ala waxa idin ka rajaynayaa wixii loo dhidido ayaa laga gungaaraa insha Allah ta'ala dhididkaas wadanka daraadiisa ayuu iga baxay insha Allah ta'ala haddana waxaan rajaynayaa inaan sii wadi doono oo aan sii laba jibaari doono aan ku sii socon doono insha Allah ta'ala Soomaaliya ha noolaato nabadiidka habaabo waan baabi'in doona insha Allah ta'ala wabillahi tawfiiq wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh